oo aan soo maray waddada aan soo maray. waa fahmi kartaan markaad macallin noqonaysid tababarka loo baahan yahay iyo wax loo baahan yahay soo martid. arrintaasi waxay ka soo horjeedaa completely markhaatiga ay fureen saddexdooduba isku raaceen inaan ahaa nin jabhada, ahaa nin bodyguard ah oo waardiye ah, watay qori iyo tuute. arrintaas ayaa diidaysa. nin mutacallima polished ah, soo shaqeeyey muddo, ku soo dhaqmay gobolka jubbada dhexe, weligiis aan jabhad noqonin, weligiis aan qori qaadanin. waad fahmi kartaan descriptionka ay bixiyeen inuu yahay qalad. sababta keentay inay descriptionkaas ama iga bixiyaan sharaxaadaasna waxay ahayd because aniga ku hogaamiyo waxaan ku iri markii hore waxaan jiray 16 sano 17 sano. haddii aan sheegi lahaa taariikhdan aan hadda maanta idiin sheegayo ma aysan dheheen wuxuu ahaa jabhad, ma aysan dheheen wuxuu la socday ciidamadii General Aidid, because waxay ahaa ladi logical. wayna soo hubi lahayn xaqiiqdii oo wax fudud oo la heli karo in xaqiiqda ay tahay waxaan sheegayo inaan macallin ahaa. laakiin maadaama ay aamineen 17 sano 16 sano inuusan noqon karin macallin, waxay go'aansadeen inay igu cambaareeyaan ama dawsha ii saaraan waxaanan aniga ahay. taasi waa qodobka koowaad. waxay kaloo ku dhaceen dabinta aan u dhigay oo ahayd inay diidaan inay sheegaan laba qodob oo kaleeto oo beena. kow waxay yidhaahdeen markii falkii lagu dilay nimanka afarta ee ay sheegeen waa sida iyagu sheegeen ay yidhaahdeen igu eedeeyeen aniga. waan ka soo cararay raadiyo muqdisho. iskuma aysan raacin arrintaas. nin ka mid wuxuu yidhi waa ka soo cararay, ninna wuxuu yidhi wuu sii joog. waxaan rabaa shacabka Soomaalida inaan la wadaago sidaan horeba waraysi ugu bixiyey inaan ahaa wariyaha khaaska ah ee ra'iisul wasaarihii markaasi jiray Cumar Carte Qaali. waxaan sidoo kale access furan u lahaa inaan tago xafiiska madaxweynaha Cali Mahdi markaas. haddii ay sidaas xaqiiq tahay marka nin wariyaa oo sida ay sheegeen intuu sidii xoolihii ula baxay niman wariyaa ku dilay bildinka ama sartii wasaaradda warfaafinta, musawixii u dhowaa intuu midba watay ayadoo loo joogo barqacad loo jeedo ku soo toogtay, soo baxay mid kala watay soo toogtay. macquul ma noqoteen in ra'iisul wasaaraha ama madaxweyne inuu ogolaado xafiiskiisa ama loo ogolaado inuu noqdo wariyaha ra'iisul wasaaraha. waxaan kaloo sidoo kale macquul noqoteen haddii aan ahay nin aqoontiisu ay liidato oo iska xoogsaday ayadan lama ogolaadin.